guddoonka xildhibaanada sharafta leh wasiirka arrimaha dibadda iyo diintiisa saxaafadda ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan idinku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudan wasiir waxaan marka hore kaaga mahadcelinayaa inaad soo ajiibtay jeeritaankii ugu yeeray baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyagoo gudanaya waajibaadkooda waxaan kaloo kaaga mahadcelinayaa dadaalkii dheeraa ee aad ugu jirto dalkeena Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada adduunka oo aad guul loogeeda aad kasoo weysay taas waa kaaga mahadcelinayaa mudan wasiir dabcan waxaa tahay mas-uulka ugu sarreeya maamulka iyo maareynta wasaaradda arrimaha dibadda safaaradaha dibadda kolkii aad soo marto ay ka qoran tahay safaaradda Soomaaliyeed oo lama kulanta diblomaasiyiinta halkaa jooga una kuurdayso habsami u socodka shaqada ee safaaraddaas waa maxay ciladaha halkaa ka jira maxayse tahay cabashooyinka diblomaasiyiinta ay qabaan su-aasha labaad mudan wasiir waxaa wada ognahay in wasaaradda arrimaha dibadda waajib looga dhigay dhaqanka sharciga arrimaha dibadda kaasoo qeexaya in haddii danjiro lagu magacaabo qaaf siyaasadeed waa inuu kasoo shaqeeyaa wasaaradda ugu yaraan 2 bilood si uu usoo barto sida ay u shaqayso waahiyaha kala duwan ee wasaaradda kadibna waxaa lagu lifaaqaa qof waaya arag kaasoo kasoo shaqeeyay muddo diblomaasiyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda diblomaasiyadda ma dhicin arrintan waa maxay qorshahaaga ku aadan wax ka bedelka arrintan iyo fulinta sharciga midda saddexaad mudan wasiir waxaa dhacday in dad danjiraah laga helo laga bedelo meeshii uu joogay loona bedelay safaarad kale isaga oo qarash farabadan galay dayn kadibna la bedelo muddo ka yar 3 ilaa 4 bilood taasoo la sharciga arrimaha dibadda ku aadan aanan qorin maxaa ka qaban arrintaas waxaa kaloo shaqadu qabaa in danjiraha joogo muddo 4 sano iyo 1 maalin la bedelo sida aan ognahay waxaa la jiro kuwa muddo fara badan iska jooga lagu jirtaa qorshahaaga dhow dhexe iyo midka fog inaad fuliso oo aad ku dhaqmo sharciga dhinaca maaliyadda waxaa jira in danjiro loo dhiibo kunada shaqaalaha iyadoo aan meelna lagu qeydin xaqa ay leeyihiin shaqaalaha safaaradda lahayna wax caddayna maxaad ka qabanaysaa si aysan mar dambe u dhicin ugu dambayn maxaad u haysaa dadka aqoonta saro ee diblomaasiyadda oo hadda wasaaradda bannaanka ka taagan walow ay ahayd mudaanka koowaad in la siiyo muxuu yahay qorshahaaga guud ee wasaaradda midka dhow ameexe iyo gabro taasaan mudan wasiir gudoomiyaha iyo xildhibaanada sharafta leh waxaan jecelahay in aan halkan si kooban uga jawaabo su-aalaha anoo markaa ka egelinaya maaragtay su-aalaha xildhibaanadu weydiiyeen in aan inta aqoontayda oo xogta aan hayo sida ku saxsan inaan idinla wadaago xildhibaan farxiin waxay weydiisay su-aalo badan oo sideed weydiin aan malaynayo ciladaha safaaradaha ka jira maxay yihiin ciladaha waddanka ka jiro kale ayaa ka jira safaaradaha lacag la-aana ka jirta waxaa ka jirta xisaabtanku si saxa u wada dhicin waxaa ka jirta gaadiid la-aan meelaha qaar gurya la-aana ka jirta anu safiiran aan ku deganahayn ma lahayn markii firtigii magacaabay hotel ayaa deganaa marka waxa weeye ciladaha ka jira way badan yihiin safaaradaha waddanka xaaladiisa ayayna la socdaan sida baarlamaanku halkaa lagu shirayo qoralka waaweynaaye baarlamaanka aan lagu shiraynin ayay qaar badan waxay ku jiraan xaalado maaragtay kumeel gaar ah qaabka siyaasadda iyo xilliga danjiraha maaragtay xilliga danjiru joogiyo sharciga ku caddahay sharciga waxaa la ansixiyey oo madaxweynuhu saafay September 2013 waxaan maleynaya wasiirka xilligaa joogay wasaaradda uu joogaa baarlamaanka ku yahay iyo wasiirka ka dambeeyaba ilaa iyo hadda sharcigaas ma hirgelin sabab kasta ha jirto anigu waxaan ahay wasiirka horgeeyay golaha wasiirada sharcigan markii la magacaabay ee yiri sharciga arrimaha dibadda ama baarlamaanka ku celin oo nidaamka sharciga wax laga bedelo ama aan ku dhaqanno oo aan isku ogaano oo garab lagu siiyo golaha wasiiraduna si buuxda ay u raaceen in sharciga sida uu yahay aan ugu dhaqmo ilaa haddana tallaabo aan qaaday cid aan magacaabay iyo cid aan ka qaaday shaqo ma jirto wasaaradda markaa ku biiray ilaa maanta sababtu waxa weeye waa wasaarad aad u ballaaran oo daraasad u ah
shaqaale fara badan oo dibadda jiro wadamo kala duwan jooga oo xaalado kala duwan ku jira oo wadamadaas siyaasado kala duwan ay magalo dhexayso iyo xeerar kala duwan shaqaale badanna gudaha ku joogo qaarkoodna aysan waafaqsanayn sharcigan waxa uu qoray marka sidii laysu waafajin lahaa iyo sidii loo fiirin lahaa wasiir dowlahana waxaa loo xisaaray inuu daraasad ku sameeyo safaaradaha talooyinka kadib wasiir dowluhu way la socdaa cabdulqaadir axmed khayr iyo waxay la socdaa agaasimeed ka tirsan wasaaradda oo xafiiska iyo xakamaan agaasimahaas ayaa loo xisaaray inuu si ku meel gaara xafiiskayga u maamulo inta aan ka fahmaya baahida wasaaradda waxay tahay wasiir ku-xigeenkana waxaa loo xisaaray muqtaar waxaa loo xisaaray inuu wasaaradda xarunta ku sameeyo dib eegis xaaladeeda waxyahay ka kooban tahay tirada shaqaalaha baajidka waxaan u baahannahay lagu soo kordhinay waxaan baahannahay la kale marka waxaan malaynaya su-aalo badan oo layuudiyin guud ahaantaas ayaa ka jawaabaysa qorshahaydu ku aadan mustaqbalka danjirayaashana waxa weeye sharcigu siduu qaba inaan raacno qorshahaydu waa kaas gudnada shaqaalaha diblomaasiyinta dibadda jira ama mushaarkoodaba waxaa loo dhibaahalayay danjiraha isagaana siduu dooro ka yeela waxaa kaga jirta waana xaqiiqa in la horeysay lagu soo socday xaaladii markaa jirtay ayaa keentay laakiin markii la magacaabay wasiirka maaliyadda ayanu tegin waa wada hadalnay waxaanan kala ahaan qabnaa inkastoo nahli ku dhaqaaqin in diblomaad kasta mushaarkiisu sida shaqaalaha baarlamaanka xildhibaanada gudoomiyaasha ka tirsan baarlamaanka iyo shaqaalaha dowladda uu u dhaco akaabka shaksiga in sidaas oo kale ay ahaadaan danjirahooda aan lagu dhiibo danjirahooda mas-uul ka ahaado wixii farasha ku baxaya safaaradaas marka taasna waa process socda qorshaha wasaaraddan waxaan dhihi lahaa waa qorshe aan idinla wadaagi karno laakiin waxaan ganacsanahay waxa weeye in dib u eegistu ku sameeyo shaqaalada oo dhan mid walba meesha joogto ma loo baahan yahay meeshaas ma haynaase kharash ku filan in aan ku socodsiin meelo kaloo loo baahan yahay ma jiraan ama konsuliyado ama safaarado waxoo dhan aana wax mayna waafajino sharcigan sida uu qoray xildhibaan cabdiraxiim geesay cabdifataax geesay haligaa cabdifataax qodobada qaar badan oo kamida waxay maleynaya jawaabteeda hore la socdeen sharciga hoteella ma hirgelin annaga geedin golaha wasiirada waa ogolyahay in hirgeliyo waa nagu taageereen qorshahan samaynayno oonan weli tallaabo qaadina wuxuu ku salaysnaan doonaa sharciga sida annaga qorsheynaya marka la yidhaahdo kamid noqoshada shaqaalaha iyo kamid noqoshada shaqaalaha iyo shuruudaha ku xiran af soomaaliga waxaan anigu u haystaa qoraalka meesha ku qoran xeebka waan arkay halkan way hor yaallaa waana qiyaasayaa inaad haysata cabdifataax waxa weye af soomaaliga u yaqaana ku qoran meesha bracket ayaa la furay af soomaaliga waxa uu ka kooban yahay ku dhex qoran laakiin af soomaaliga mid ama labadaba lama dhihi af soomaaliga u yaqaana meesha ku qoran oo macnaheedu yahay hadduu maa yaqaanana waa okay hadduu maxaa kaga yaqaanana waa okay hadduu labadaba yaqaanana waa okay saasaan ku macnaysta haddii baarlamaanka clarification ka bixinayo oo soo cadinaya taas yaa badan muddada shaqada dibadda ayadaas ayaa jawaabahii hore ku jirtay afar sano in safiir ku fadhin karo hadda xarun 8 sano dibadda ku macnaan karo laakiin 8 sano ka badan aan dibadda ku macnaan karin waa jiraan rag iyo maaragtay gabdho muddadaas dad aad uga badan ku macnaa dibadda marka sida laga yeelayana waa qorshayaalka ayay ka mid tahay xasaanada diblomaasiga waxaa maraysaa meeshaas wararkii wax qarsoodiye maaha waa wararkii maalmada weli ku qornaa miidiyaha qaarkood diblomaasigaasna waa danjiraha noo fadhiya magaalada new york oo qaramada midoobey noo fadhiya danjirahaasi waa sax inuu laba dhalasho haysto soomaali mareya dhalasho maraykana inuu haysto waa wax jira laakiin anagu uma dirsan isaguna ma aqbaleen dowladda maraykanka umaana dirsan dowladda maraykankuna ma aqbashay laakiin waxaan u tirsanay urur caalami ah oo aan xubin ka nahay
ururkaas caalamiga ahna wuxuu ka haystaa inta dindira ka haysto dindira kasta oo meesha ka tirsan marka ururada caalamiga ah iyo dowladuhu waa kala labo ururka midowda afrika kamid ka nahay ururka jaamacadda carabta kamid ka nahay ururka qaran midooba kamid ka nahay iyo ururka islaamka haddii aan marka safiir ku dirsanayno ururadaas way ka duwan yihiin dowlad markaa u dirayso waddan kale markaa u dirayso waxaad u baahan tahay agriimaan wax la yidhaahdo inaad tiraahdo qofkaasaan idin soo diraya cv-giisina waa kaas ma ogoshin waxaa rabaa waddankaas in iska baaro qofkaas uu yidhahdo waan ogonahay soo dira xeerka dhaqanka diblomaasigu waxa weeye haddii uusan ogolayn ma dhaho ma ogolin qofkaas uu ka aamusay haddaad jawaab uu yidho 3 bilood kadib macnaheedu waxa weeye qofkaas laga daaya marka waa in qof kale magacaabaa ururada caalamiga ah ayaan xubinta ka nahay xubin ayaa ka nahay ururka annaga ah qaramada midoobay waa annaga iyo wadamo kaloo dhalanay cid naga xigtaamin jirto marka macnaheedu waxa weeye uma baahnid inaad tiraahdo qof maa soo magacaabaya safiir loogoshin waxaweye keliya waxaa lahay hebel ayaa soo magacaaba dalashadii karo doona ha haysto wuxuu doona ha ahaado wuu aqbalay anigu markaa tegay qaramada midoobay la iima dirin agriimaan wax la yidhaahdo keliya waa la magacaabay halkaas laga magacaabay sida madaxweynaha xil waddankan kugu magacaabi kara markiisa wasaarahayna ayaa xil waxaa kugu magacaabi kara ururkaas dowladda wakiilka ahaa marka diblomaasigaas kaasa laga jawaabaya taariikh nololeedka waxaan ka fahamsanahay horta qodobka sodon kaadnahay 33 milyan malaynayaa taariikh waxa weeye annaguna waan haysanaa meeshii u socdana waan u dirnaa cidi kale oo ay khusayso oo u baahan in lala sheegtireen oo diyaar baan nahay xildhibaan caashaqoos waswaarina ankara anoo hoob kale ku socday laakiin sida ay sheegteen way ku mahadsantahay markaa ku furtay arrinta ardayda waxaa bilaabay madaxweynaha oo socdaalka ku tagmay turkiga oo aan la socday madaxweynaha turkiga hormay sababta safaarada lagu wargelisay ardayda soomaalida waa noo yimaadeen oo noo sheegay haddaan taariikhdeeda ka siiyey meeshaas waa afgembigii dhicisoobay ee turkiga ka dhacay arrin la xiriirta afgembigaas dhicisoobay ayaa ururo ku xirnaa oo dalka turkiga laga mamnuucay ayaa awal waxay qaadeen dad waxbarasho ku qaaday dalkeena soomaaliya halkaan geeyey sidaa halkaan bay isbitaaleen u furay markii dowladda ay isku dayeen inay afgembiyaan dowladooda ka mamnuucday ardayda ay keentay in waxaa laga mamnuucay waxbarashada ay ku jireen marka waa wax laga weyn oo dalkaas oo dhan haysta madaxweynaha waanu aqrin karaynay ardaydaani turkiga u yahay ee ani kala aqoonin mucaarad iyo muxaafid xiriir kalena aanay lalahayn macnuhu ahaa nin arday oo fursad helay oo gabar ardayda oo fursad heshay markii in loo tixgeliyo waxbarashadoodii ayay ka codsan madaxweynaha ayaa madaxweynaha ka codsan levelkaas ay ku bilaabatay kadibna aanu markii socdaal labaadka ku tegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda maadaama wasiirku manaa iyo arrinta aan doonayna degdega ay ahayd iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa goonigii qaabilay labadii mas-uule aan la kulmayna cv-keeda oo ka waqti dheer intii madaxweynuhu xusay sababtaa waqti madaxweynayaasha soo koobnaa ayaan aad ugala hadlay tallaabooyin in la qaado waxyaaba dib loo eegaa lagu heshiiyey welina wax ka soo baxay oo hadda isbedel oo ka warqabaa ma jiraan oo soo gaaray marka waa isku sii doonaa soo ma soconaya waa mahadsantihiin waa mahadsan yahay wasiirka